السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبتي ku xiran channelkeena maalin wanaagsan ama habeen wanaagsan ku soo dhawaada muuqaal cusub. Ma doonaysaa inaad ogaato liiska madaxda ugu taajirsan adduunka? Haddii ay sidaas tahay, waxaan maanta ku hayaa liiska 5 madaxweyne ee ugu hodansan caalamka sanadkan 2022. Ma ahan wax lala yaabo in madaxda dalal badan oo adduunka ah ay yihiin kuwa taajiriin ah. Qaar ka mid ah madaxdan waxay ka dhasheen qoysas maalqabeeno ah, halka qaarka kalena ay hantidan kasbadeen qaabka ay ahaataba. In la soo gudbiyo sida ay u kala hanti badan yihiin madaxda adduunka waa hawl aad u adag, sababtoo ah qiimaha hantidooda ayaa inta badan isbedel ku yimaada. Waxba yaan hadalka idinku daalin, ku soo dhawaada mawduuceena maanta. Hagaag, haddii aynu eegno liiska 5 madaxweyne ee ugu qanisan adduunka, madaxweynaha shanaad. Booska shanaad ee liiskan waxaa ku jira madaxweynaha Imaaraadka Carabta, Khalifa bin Zayed Al Nahyan. maalqabeynkan ayaa dhashay sanadka markuu ahaa 1948 waxa uu ku dhashay magaalada Al Ain ee dalka Imaaraadka Carabta. Sheekh Khalifa ayaa waxa uu caan ku yahay xiisaha uu qabo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka dalka Imaaraadka, gaar ahaan ciyaaraha orodada fardaha iyo geela. Ninkan ayaa inta badan noloshiisa qaaska ay tahay mid qarsoon, lamana oga heerka nolosha uu ku nool yahay sida madaxda qaar, balse sida laga soo xigtay warbixin ay soo saartay majalada Forbes, hantidiisa waxa ay gaaraysaa 18 bilyan oo dollar. wuxuuna hadda kaga jiraa madaxda ugu hodansan adduunka kaalinta shanaad. madaxweynaha afraad. booska afraad ee liiskan madaxda ugu taajirsan adduunka ee sanadkan waxaa ku jira boqorka Sacuudi Carabiya. Boqor Salmaan bin Cabdulaziz Al Sacuud waxa uu ku dhashay caasimadda dalka Sacuudiga ee Riyadh sanadka markuu ahaa 1935. wuxuu boqornimada la wareegay isagoo da'diisu ay tahay 80 sano kadib markii uu dhintay walaalkii oo ku fadhiyay xilkaas. Inta badan hantidiisa waa dakhli ka soo gala saliidda ama shidaalka. Sida laga soo xigtay Forbes, Boqor Salmaan wuxuu haystaa hanti dhan 20 bilyan oo dollar, taasi oo ka dhigaysa shakhsiga afraad ee ugu hodansan madaxweynayaasha adduunka. Marka laga hadlayo waddan, hogaamiyaha inta badan waa madaxweynaha dalkaas, balse xaaladaha qaar, boqorad ama ra'iisul wasaare ayaa noqon kara hogaamiyaha dalka iyadoo ay ku xiran tahay nidaamka maamul ee dalkaas. madaxweynaha saddexaad. shakhsiga saddexaad ee ugu taajirsan madaxda adduunka ee sanadkan waa boqorka dalka Brunei. Hassan al-Bolkiah waa suldaanka dalka Brunei, waana mid ka mid ah qoysaska boqortooyada ugu qanisan adduunka iyada oo hantidiisu lagu qiyaasay 30 bilyan oo dollar. Brunei waa dalka shanaad ee ugu soo saarka badan saliidda koonfur bari Aasiya, waxaana kaliya kaga horeeya Indonesia, Malaysia, Vietnam iyo Thailand. shidaalka ceyrinka ah iyo dhoofinta gaaska dabiiciga ah ayaa suldaan Hassan al-Bolkiah ka dhigtay mid ka mid ah dadka ugu qanisan caalamka. majalada Forbes ayaana sanadkii 1988 ku qiimeysay inuu ninkan yahay shakhsiga ugu taajirsan adduunka. Suldaan Hassan al-Bolkiah waxa uu caan ku yahay inuu leeyahay gawaari aad u tiro badan, laguna qiyaasay tiradooda 7,000 oo gaari, kuwaas oo lagu qiyaasay isku darka qiimahooda in ka badan 5 bilyan oo dollar. sidoo kale suldaanka ayaa leh diyaaradaha gaarka ah, waxaana ka mid ah Boeing 747-400, Boeing 747-200 iyo Airbus A340-200. diyaaradda nooceedu tahay Boeing 747-400 ayaa si gaar ah waxay ugu samaysan tahay dahab, waxayna leedahay adeegyo dheeri ah sida qol jiif ah iyo qol fadhi ah. suldaanka ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay kuna nool yahay qasri aad u weyn oo ka kooban 1700 qol. madaxweynaha labaad. wiilka kaliya ayaa iska dhaleen boqor Bhumibol Adulyadej iyo boqorad Sirikit ayaa soo galay booska labaad ee liiskan. Maha Vajiralongkorn waa boqorka hadda talada u haya dalka Thailand, waana hogaamiyaha labaad ee ugu hantida badan adduunka. inkasta oo aan si sax ah loo ogeyn hantida boqorkan, haddana waxaa lagu qiyaasay hantidiisa inta u dhaxaysa 40 ilaa 60 bilyan oo dollar. ka hor inta aanan soo gudbin madaxweynaha ugu hantida badan adduunka, daawada adiga yaad isleedahay wuu noqon karaa madaxweynahaas. commentiga nagala wadaag. mahadsanid.
madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa liiskan ugu sarreeya, isaga ayaana ah hogaamiyaha ugu taajirsan adduunka. majalada ka faaloota arrimaha dhaqaalaha ee Forbes ayaana ku qiyaastay hantida Putin inay gaarayso ilaa $70 bilyan. daawadayaal mawduuceena maanta ee ahaa liiska 5 madaxweyne ee ugu hantida badan adduunka halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka heshay fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada kale. waa inoo muuqaalkiisa insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.